السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkii maxamed amiin iyo muuqaal kaloo xiise leh iyo mowduucii hore noogu socday. soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meel kastoo joogtaan soo dhawaada. waa muuqaalkii hore noogu socday iyo walaalkii maxamed amiin. channelka iga daawanaysaana waa amiin media. fadlan haddaan ugu cusub tahay soo dhawaaw. haddii aad nala joogtin hore nala joogtin waa ku mahadsan tahay. oo muuqaalkii hore noogu socday ee ahaa sidee baan ku barnaa carruurteenna luqadooda hooyo ee af soomaaliga. waxaan horey uga soo hadlay muhiimadda ay leedahay af soomaaliga iyo weliba afar shay ama afar arrin oo muhiima in la sameeyo. maantana waxaan doonayaa insha allahu tacaala inaan kula qaybsado ama dhammaantiinba inaan la qaybsado afar arrin ee muhiim ah in laga ilaaliyo carruurta si luqadooda u bartaan ama ay u hayaan. awalan ilaah ayaa mahad iska leh. marka xigta anigu waxaan ka cudur daartaa had iyo jeer inaan ahayn nin ustaad ah, mana ihi macalin, balse waxaan ahay wiil soomaaliyeed oo doonayo wuxuu soo daraasiyey inuu la qaybsado walaalihiisa soomaalida meel kastoo joogaan. lacalla wa casaa inuu ilaahay ku anfaco qof waalid ah ama qof cunug yar oo soomaaliyeed. taasi ayaana ilaahay ka rajeynaynaa. hadafkaan ka leenahana taas weeyaan insha allahu tacaala. soo dhawaada. markasta marka waxaan si ixtiraamka kaaga codsanayaa intaan muuqaal ka dhexgelin oo mowduuca hore u soconin inaad soo dhawaatid. kanaalka haddaa ku cusubtaana aad subscribe saartid, haddii kalena aad sii shaargaraysid walaalada oo waalidka u baahan aad la qaybsatid. run ahaantii afartii hore waxaan u arkaa arrin muhiim ah. afartan maanta doonaya inaan la qaybsado waxaa weyn afar arrin oo muhiim ah. waxaan ognahay run ahaantii inay tahay carruurta waxa ugu wanaagsan ilaahay bixiyo. liannahu qofka hadduu carruurtiisii ilaahay siiya uu ku dadaali waayo dee berritoo la weydiinayaa. ha noqoto diintiisii iyo dhaqankiisii iyo soomaalinimadiisi iyo luuqadiisaba muhiim weeyaan inaan ku dadaalno. waana waxa keliya ilaahayna siiyo ee hantida magoodhada ah. taasi ayaan doonayaa inaan nafteyda iyo dadka u sheego insha allahu tacaala. haddaan dhexgalo mowduuca maanta aan doonaya inaan ka hadlo waxaa weeyaan afar arrin oo muhiim ah. arrinta koowaad aan doonaya waalidka inaan u sheego waxaa weeyaan haddii aad doonayso cunugaaga inuu luqadda barto, luqadiisa hooyo soomaaliga inuu barto, waxaa had iyo jeer ale muhiim ah in aadan kula hadlin cunuga luqadaha qalaad ee waddanka aad joogto. isku day haddii xitaa uu kula hadlo inaad soomaali ugu jawaabtid. mararka qaar ad wax ku weydiin aad dhahda ma fahmayo maxaa ka wada af soomaali ugu sheeg. taasi waa arrinta koowaad een doonayo maanta inaan kula qaybsado. luqadiisa cunuga kula hadal ee luqada kale oo waddankuu joogo ha kula hadlin, waayo waxay ka caawinaysaa inuu isku dayo oo ku fahansiiyo wax kuu sheegayo. tan labaad arrinta labaad doonaya inaan kula qaybsado waxaa weeyaan insha allahu tacaala in loo baahan yahay aan lagu qasbin cunuga inuu ku hadlo luqadda af soomaaliga. yacni cunuga ha ugu dhigin qasab, ma ha ka dhigin macnaha ha ku dilin, ha ku canaananin inuu ku hadlo, laakiin jeclaysii. waayo haddaa ku canaanato waxaa dhacayso inuu luqad dhinac oo kale haysto uu kasii cararo. taas muhiim waaye. marka cunuga ha ku qasbin, laakiin si ixtiraam leh oo macnaha naxariis leh ugu sheeg, kana abaalmari sidaan hore u sheegay insha allahu tacaala. marka luqadda ha kula hadlin, hana ku qasbin luqadda soomaaliga oo adigoo dil ama macnaha ku qaylinaya ha u sheegin oo dhihin ku hadal qasab ah. waayo waxaan ognahay qof bini aadan oo qasab wax ku barta ma jiraan, haba yaraado ama ha weynaado. taasna waa arrin muhiima runtii. tan saddexaad in doonaya waxaa weeyaan ha u akhrinin cunuga intuu kula joogo luqadaha kale ama luqadda waddanka aad joogto, adigoo doonaya macnaha inuu luqadaasi barto tiisana uusan baran oo macnaha aad danaynin. marka luqadaha kale inta xooga saar lahayd waxaa muhiim ah inaad cunuga luqadiisa ka dhistid
waxaa hubaal ah hodanti ah cunuga hadduu luqadiisa ka dhisan yahay luuqad kasta inuu iyuu baranayo, hana ka walwalin. Khaasatan wadankuu joogo luuqadeeda inuu baranayo shaki kuma jiro, waana caruur yar. marka muhiimadda xooga saara insha allahu tacaala caruurta meel kastay joogaan, ilaah ha xifdiyo. tan afraadan kula qaybsanay maanta waxaa weeyaan, ha ku qoslin ama hanay jibinin haddii cunug eri Soomaali ah si qaldan u dhaho ama eri Soomaali ah si qaldan ugu dhawaaqo, balse waxaa dhahdaa waa saxsan tahay, sidaas ku wad, waana baran doontaa insha allahu tacaala. niyadda u dhis, weli waxaa ugu dartaa inaad abaalmarin siisid insha allahu tacaala. taas waxay kaa caawin doontaa inuu cunugaada ku dhiirado qalad isaxba inuu dhaho Soomaaliga, deedna marka dambe uu ka gaaro heer sare insha allahu tacaala. tan ugu dambeyso aan raacinayo waxaa weeyaan, waxaa had iyo jeer al muhiim ah guriga joogtid oo ilmaha uu joogo ay dadka ku wada nool yihiin, haddaad badantiin hadda yartiin, waxaa muhiim ah inta cunuga ama ilmaha ay joogaan in luuqadii Soomaaliga ahaa guriga ay ka shaqeyso lagu hadlo. haddii kale luuqadii kale ayaa noqonaysa luuqada guriga ama luuqada hooyo, taasina waxay qadka ka saaraysaa luuqadii Soomaaliga ahayd cuniga iyo reerka uu ku dhisnaa. marka taas ayaan muhiim run ahaantii. waxaan oo dhibco ah waxaan u sheegay ma aha macnaha wax oo ii sheegay aan iska dhahayo, laakiin waxaan soo daraaseeyey oo yacni aan xirfad u leeyahay. marka intaas haddaad isku dayid insha allahu tacaala, waxaan rajeynayaa inaan natiijo wanaagsan ka soo baxdo insha allah, ama kaaga soo baxdo. qof kastoo waalid ahna waxaan u rajeynayaa insha allahu tacaala caruurta inuu ilaahay u xifdiyo meel kastuu joogo. marka intaas ayaan doonayaa clipkayga maanta inaan kusoo koobo insha allahu tacaala. fadlan waxaan kaa codsanayaa, haddaad garanaysa waalid Soomaaliyeed meel kastuu joogabo, gaarsii fariintan insha allahu tacaala. waxaan rajeynayaa lacala wa casa inuu ilaahay ku anfaco, dhammaantan ilaah nagu anfaco, ilaahay noo fududay insha allahu tacaala. marka ma doonaya inaan clipkan ku dheeraado. meel kastoo joogtiin waxaan leeyahay soo dhawaada insha allahu tacaala. caruurtan ilaahay hanoo xifdiyo في أمان الله. كانوا كل أنتم كل بدون إن شاء الله تعالى، وحن إليها أما نبدأ هذا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.